balanteenu waa Cali Foldere Media iyo barta aqoonta burqanaysa warbaahinta maanta iyo mar waliba waa Cali Foldere Media usha ragga inta budka oo kala ahi hadii ay gasho daloolka dumarka shariicadu xishood ma leh waayo waa wax nolosheena faseeyo weeye sariirta intuu saaray ayuu yiri waxaan eegayaa farjigaaga fartu galiye dabadeedna biyihii baa ka soo baxay manidii saqajaanada gacmahooda isticmaala ayaa qaarkood gacantooda isticmaalona biyihii iska keeneen vitamin A iyo calcium labada maada ku jira biyaha rag iyo dumarka ka soo baxa muslim oo dhageyso lix mas'ala haday kugu yimaadaan mayr baa lagu yeelanay mid kamid waa tan habeenkii dhaweydii ka waramayay culimadii xeebta u dhaadhacday odayga 70 jirka u tagtay ee uga waramaysay baabkan wiil war waxana la saarkan waxana ka sheekeynayaan waa maxay war maano oorideydii xalaash ahayd u tagay baa waxa leedin mayr baa kugu waajiba waligay baa anagu culimo kala ma aan maqal galmood baa laga daahirsadaayo waajib kugu ah 70 baan jira waligayba kama maydhan hada waa kii kitaabkii ugu yaraa safiinu sanadka ayaaba tilmaamaya lix mas'alo haday dhacaan way mayri baa waajiba dhagaha ay fura mayri baa waajiba ko ilaajul hashafati fil farji usha ragga inta budka oo kala ahi hadii ay gasho daloolka dumarka ee hore intaas haday isku libidho iyada iyo isagaba mayri baa ku waajiba haday doonto labadooda wax biyo ay ka imanin shariicadu xishood ma leh waayo waa wax nolosheena faseeyo weeye usha raggu inta budka u eega haday ku libidho daloolka dumarka haday ku libidho walow biyaba ay ka iman labadooda galitaanka ay iskaleen dunta iyo irbadu waxay waajibisaa mayri bay waajibisaa wa khurujul maniyi qof baa maniyi ka timi ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaadeen way seexdeen way riyoodeen deedna way janaaboodeen oo mani baa ka timi dumarkuna way mani way leeyihiin waati saxaabiyadii nabigeenu qaba calayhi salaatu wasalaam salama ay afkaas qabatay tiri oo dumarku miyay riyoodaano biyaa ka yimaada uu nabigu yiri sakiladka ummuka ha hadaa maxay caruurtu uga ekaataa hooyooyinkood mararka qaarkood dumarkuna way ixtilaamaano biyo way ka yimaadaan raguna way ixtilaamaano biyo way ka yimaadaan ama kayfiyad kala bay uga timi si kala bay uga yimaadeen biyihii midalan gabadhii tusaale ahaan baa dhakhtar u tagtay ayadoo ka cabanaysa inta macdanta dabadeedna wiil dhakhtaraba sariirta intuu saaray ayuu yiri waxaan eegayaa farjigaaga fartu galiye dabadeedna biyihii baa ka soo baxay manidii mayr baa lagu leeyahay walow nin bayuu u kalmoon haday biyo ka yimaadaan iyay oran daahir baatay waa inay maydhata ama wuu fikiray ninkii oo maskaxdiisa waxa ku soo dhacay isagoo la ciyaaraya ooridiisii sidoo maskaxdiisa uga shaqaysiinay inay biyihii soo boodeen ama saqajaanada gacmahooda isticmaala ayaa qaarkood gacantooda isticmaalona biyihii iska keeneen istimnaa baa la yiraahdaa waa mamnuuc caafimaadkana way u daran yihiin adu kayfiyaday doontaba biyuhu ha ku yimaadaan caada sirriya bay yiraahdaan dumarkuna way iska keenaan raguna way iska keenaan waana shay nolosha u daran caafimaadkana u daran in biyaha maxaan ku raad dariiqadii saxda ay dariiqaan ahayn la iskaga keeno dhowr cudur baa ka dhasha cudurro waaweyn baa ka dhasha rag iyo dumarkaba kuwii aad u isticmaala bahashaas oo waxay yiraahdaan cilmiyan maadadan soo baxaysa laba maado qaaliya baa ku jira vitamin A iyo calcium labada maada ku jira biyaha rag iyo dumarka ka soo baxa vitamin A gu wuxuu aad u caawiyaa indhaha iyo fahmada iyo xasuusta calcium tuna waxay u caawisaa dhismaha lafaha ayay caawisaa marka ruuxu hadduu dariiqadii loogu talagalay dariiqo aan ahayn uu iskaga keeno wuu indha dareeyaa lafihiisuna si sahlan bay u jabi karaan awoodda wadnihiisuna way hoos bay u dhacdaayo socodka ma kari karo in masaafo yar ma lugayn karo xasuustuna hoos bay u dhacdaa fahmada shayguna wuu ku yaraadaa hadduu qofku isticmaalo caada sirriya rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee marka kayfiyaday doonaanba ha uga yimaadaan maniduye
haddii wiil iyo gabadh midkuu doonaba biyuhu ay ka yimaadaan walow galmabayay kaga imanne hadday hurdo xataa kaga yimaadaan waxaa looga baahan yahay inuu maydho tan saddexaad alxayd gabadha hadday xayddo markuu xaydku ka dhammaado si awooddeedii tagtay iyo jidhkeedii furfurmay ee awooddu ay ka tagtay ay isu soo kabaan macdan baa ku jirta biyaheennan ilaahay uu geliyey oo mar allaaliya marka caadadu ay ka go'do hadday dumarku maydhaan waxaa u soo noqda enerjigii iyo tabartii ka tagtay oo dhan ayaa dib ilaahay ugu soo celiya waana kan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay uu leeyahay maalan ninku hadduu ooridiisa u galmoodo oo uu doono mar labaad inuu dib ugu laabto waa inuu maydhaa si nashaad hor leh uu u helo oo jidhkiisa macdantii ka baxday ilaahay ugu soo celiyo waayo biyahanu waxa weeye nolosha bini aadmiga wajacalnaa min almaayi kulla shayin xayin waxay leeyihiin biyuhu awood yani dheeraad ah oo ay jidhka firfircooni horle u geliyaan marka gabadhu markay xayddo markuu xaydku ka dhammaado inay maydhataa waajiba wannifaasu haddii gabadha dhiiggii dhalmadu ka yimaado intay caruur dhasho ama ay dhicisay deedna dhiiggii uu ka yimaado markuu dhiiggaasi ka go'o inay maydhataa ku waajiba walwilaadatu tashanaad haweentu hadday dhasho oo dhiigba aanu ka iman ilmo qallalan baa ka soo dhacay oo bilaa dhiiga dhalmadaa ay dhashay ilmaha ayaa waajibinaya inay maydhato ka lixaad almowtu hadduu qofkii muslimka ahaa dhinto isaga waajib kuma ahane ciddii markaa joogta ayay waajib ku noqonaysaa inay u maydhaan lixdaa masalo ayaa cinda shariica waajib ay tahay in qofka bini aadmiga loo maydho hadduu meyd yahay ama uu maydho haddii uu yahay maxaanku idhaa xilosaamad like saar oo sheergaree isla markaana comment ka bixi casharada muhiimka ah ee diinta islaamka ku saabsan oo uu soo dhigayo cali folder media